iyadoo diiwaangelinta madaniga ay muddooyinkii u dambeeyay ka soconaysay gobolka Togdheer xaruntiisa magaalada Burco ayaa waxa dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco oo maanta warbaahinta la hadlayay ay sheegeen soo gudbiyeen caqabado hortaagan inay qaataan kaarka dhalashada aqoonsiga Somaliland waxaana dadweynahanu sheegeen inay goobaha diiwaangelinta loogu talagalay ay yihiin kuwa kooban kuwaas oo aan lahayn chance uu qof kastaba ku heli karo inuu qaato kaarka aqoonsiga dhinaca kale waxa iyaguna arintaasi daba socotay inay jiraan hawlaha dardargelinta habsamo socodka diiwaangelinta oo hooseysa waxaana dadkan ay qaar ka mid yihiin mas'uuliyiinta goobaha diiwaangelinta madaxda ka waxaana wasaaradda arrimaha gudaha iyo xukuumadda ka codsadeen in la kordhiyo goobaha diiwaangelinta madaniga dhalinyarada odayaasha hadalka gobolka Togdheer magacayna leeyahay Cabdi Saciid ana muwaadin jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhashay deegaanka gobolka Togdheer waxaanu cabasho xooggan ka muujinaynaa kayuga dheeraadka iyo dhibaatada aad u faraha badan iyo goob yaraanta ka jirta gobolka Togdheer ahana diiwaangelinta jamhuuriyadda Soomaaliland goobihi aad yaraaday 28 goobood baa loogu talagalay gobolka Togdheer 24 goobood baa inta shaqeynaya walaalahay waxaanu leenahay diiwaangelintii ka socotay gobolka aad bay wada taciirtay waayo ma aan galin ka dadka wareysato boqolkii qof 5 qof baa galay qof kastaana waqti uu u leeyahay markuu tago wuxuu arkayaa iyadoo boqolaal qof sidii maalintii codaynta oo kale ay tuban yihiin qofkiina wuxuu ku jirayaa muddo hal saacad waxaan leenahay hal fududeeyo maalintii sidii goobta dee 100 qof ama dhowr boqol qof ay u codayn lahaayeen oo isu diiwaangelin lahaayeen الله فضيلة. كلنا وهركو أترينا دتكو ومش ومجال بدن دت بدن بتشوجا دتكو سلا هديان وحاجة بدلين وعاني لو فضيلين برنامج كأشيدي وحلو أرجع سوق فضيلين لا وانجوال بدين دتكو فوريري يا بيقولوا بقطع. الحين من قبل قاعد ويا محل صار حسنا أنا مواد كلنا المجال برعه وحدوني أنا كهذا الديوانجريتا كسعة قبل. diiwaangelintii maxaa ay gobolka si wacan bay uga socotaa goobihii way shaqeynayaan laakiin waxa jira ciriir fara badan oo qofkii uu kala kulmayo markaas taahdo diiwaangelintii doono safar dhaadheer dadka ay ku jiraan goobihii oo dadkii ku yar Allahumma salli ala Muhammad waxa la leeyahay gobolka waxa loogu talagalay 28 goobood oo ay magaalada loogu talagalay dhexdeeda inay ka shaqeyso marka hore waxaan leenahay 28 ka goobood ee loogu talagalay waa ciriir bay ku yihiin dadka magaalada ku nool iyo goobaha talabaad 28 ayaa leeyahay afar kamid ma shaqeynaya markaas waxa dhacaysa markaas taahdo diiwaangelintii gal inaad goob istaagto saf dheer aad gasho oo muddo dheer aad taagnaato ka bacdina qofkii hawlu leeyahay danuu leeyahay inaad xamil karo iska timaado waxa jira dad waaweyn waxa jira marka waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ka codsanaynaa in muxuu ahaayay horta marka hore ay daba gasho 28 goobood ay waasay gobolka ma furayeen mise ma furna taas marka la helo waxa kale ka codsanaynaa in muxuu ahaayay ay sameeyaan in goobaha la kordhiyo oo magaalada goobaha loo badiyo oo muxuu ahaayay 30 iyo 35 hadii la helayo loo badiyo taas la leeyahay de gobolkii waxba la sii kala shaxaadayo saadeen lagu maqaalada dadku sheegayaan waxaan leenahay de qortaana wasaaradda arrimaha gudaha cid ay igmatay in daba gashaan waxaan maqlayba de mas'uulkii ugu sareeyay gobolka ay wax sii kala shaxaadayo marka دبر صاحب كوارث فريدة. عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعد وياي أستفارق محمد ودواجريتها كاركا أقصي سيرد وشيء قاعدة أو وقت غير عيان يقصفك تاج ناس بدرس على بدنا كده نمركي عند دور عشاء قري كغن عيد قاعد شديسي ويتحسنك اللي بتيجي نصف في عرير النقدي يوم قرنسا عركي قرنس كاركا لقى قاعد ندك كي قاعد عصلادين كده بنا أنا قاصدين عن قلم بقى. مقعد ومثال مهدي. waxaan gudoomiyaha goobta wasaaradda beeraha iyo diiwaangelinta gobolka goobtana waa goob aad iyo aad u dad badan dad fara badan oo diiwaangelintii aan shaqeynay waxayna u badan tahay dumar ereyadan marka aan deganahayna kama dhawo goob diiwaangelineed waxa uu loo qaaday maxamuud iyo balaasa marka dadkeedu aad iyo aad u fara badan aad iyo aadna waa u shaqeynay الرحمن الرحيم مقعي هو محمد عمر فليري diiwaangelinta gobolka aad iyo aad ay ciriir u tahay waana wax yar waxaanu ka codsanaynaa gobolkan waa gobolkii horta waa caasimadii labaad goobahan aad baa loogu yareeyay
dadkuna aad iyo aad goobtii aad tagtaba waxaad moodaysaa haddii halaqada ilaahay suu keenay markaa waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha inay gobolka u soo kordhiso dadkuna aad iyo aad buu deew tabcaan u yahay shaqaalihii baa daalay oo wada tabcaana markaa waxaana wasaaradda arrimaha guduhu gobolka aad iyo aad ha u eegto markaa waxaan codsanaya wasaaradda arrimaha gudaha ku codsanay in goobaha ay noo kordhiso weliba dhinacayaga maaragtay marka lasoo tallaabo ay wax kusoo darto oo goobo kale magaranaysa laga sameeyo eryada noo dhadhowo kale si kastaba ha ahaatee diiwaangelinta madaniga ah ayaa waxaa isa soo taraya gelitaan la'aanta dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan gudaha magaalada Burco iyo yaraanta goobaha loo qorsheeyay dadweynaha oo aan ku fillayn. Maxamed Faarax Bile, wararka shabakada caalamiga Ictiraaf News, gudaha magaalada Burco.